maxkamadda gobolka Mudug ayaa soo gabagabaysay fadhiyo dhowr ah oo ay ku dhageystay dacwad ciqaabeed dil ah oo loo haysto eedeysane Cabdikariin Muxiidiin Cali oo xafiiska xeeraalinta guud ee Galmudug oo ku soo eedeeyay dil xilli habeen ah 6 bishii 10aad 2020 loogu geystay deegaanka saddex xiglo oo gaalkacyo hoostaga Allah u naxariistay marxuum Nuur Yare Guuleed Cawaale xeeraalyaha guud ee Galmudug Cabdicasiis Nuur Xuseen oo cuskaday xaashi qiraal ah oo eedeysanaha laga qoray iyo cadeymo kale oo laga soo ururiyay goobta uu falku ka dhacay ayaa garsoorka ka dalbaday in eedeysanaha la mariyo ciqaab adag xafiiska xeeraalyaha guud ee Galmudug wuxuu Cabdikariin Muxiidiin Cali ku soo eedeeyay in uu falka dilka ah si bareer ah ugu geystay marxuum Nuur Yare Guuleed Cawaale taariikhdu markay ahayd 6 bishii 10aad 2020 abaaro 8 fiidnimo si waafaqsan 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qiraal maxkamadeed ayuu sameeyay eedeysanuhu oo maxkamadda horteeda looga saxiixay taariikhdu markay ahayd 18 bishii 11aad 2020 qiraalkaas maxkamadda uu ka hor sameeyay ayaan maxkamadda u soo gudbinaynaa waxaan si aan shaki ku jirin u cadeynay in Cabdikariin uu mas'uulka ka yahay dhimashada marxuum Nuur Yare sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in lagu ciqaabo ciqaabta uu mudan yahay si ay ummaduna uga badbaado ayna ugu cibro qaataan kuwa asaga la midka ah ee sida jees-jeeska ah qof bani aadama qori inta ku taaga haddana xabad ku rida dhanka kale abukaati xalane oo difaacayay eedeysanaha ayaa ku dooday inay isburinayaan qodobada eedda ee xafiiska xeeraalinta iyo qaabka falku u dhacay eedan waxa saldhig looga dhigay oo buddhig u ah qiraal markaan aan fiirino qiraalka muxuu sheegaa mudane gudoomiye soo qiraalka wuxuu sheegayaa waxaan ku ag dhufto fiiriya inaan ku dhufto lama dhihin qiraalka inaan ku ag dhufto uu leeyahay qiraalka soo deji haddana qiraalka maxaa ku qoran la saxiixay wuxuu leeyahay inaan ku ag dhufto kadibna waxay oga dhacday lugta midig meeshaas waxyaalaan iftiimina qof markuu qof dilaayo bini aadamka jir badan oo laga dilo leeyahay sida madaxa wadnaha caloosha meelo badan oo laga dilo leeyahay laakiin lug in qof loo dilo oo uu ku dhimanayo sababtiyaa gashay maahina laakiin ku talagal ma ahan inuu dilo hadduu ku talagal yahay kas 434 kas wuxuu noqonaa oo ku talagal uu noqonaa meelaha laga dhinto oo kale boosashinadan oo kale madax oo kale hadduu uga dhici lahaa macquul kas waayo waa la dhihi lahaa Cabdirasaaq Cali Yuusuf gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug oo dhageysiga dhinacyada xeeraalinta iyo qareenada difaacaya eedeysanaha kadib ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa cadeeyay in Cabdikariin Muxiidiin Cali yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay isla markaana lagu xukumay dil toogasho ah oo noqonaya qisaasta marxuum Nuur Yare Guuleed Cawaale maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Cabdikariin Muxiidiin Cali ina caasho warsame cilmi 39 sano jir ah ku dhashay Mudug degan saddex xiglo oo yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay sidaa darteed maxkamaddu markay aragtay aayadda 45aad ee suuratul maa'ida maxkamaddu markii ay aragtay aayadaha 178 iyo 179 ee suuratul baqara maxkamaddu markay aragtay kitaabka muqnil muxtaaj sharxul minhaaj juska 4 bogga 3 maxkamaddu markii ay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay dambiile Cabdikariin Muxiidiin Cali ina caasho warsame cilmi 39 sano jir ah ku dhashay Mudug degan saddex xiglo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Nuur Yare Guuleed Cawaale cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan ku siman muddada uu sharcigu baneeyay oo ah 30 cisho Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb